website-yada ayaan ku dhex geenayaa marka aad diyaarsan tahay ee aad diyaar tahay ee qalabkaadii waxaadna ay ku diyaar yihiin waxaad u baahan tahay website shirkadaha iyo dadka shaqada raba isu keeno. website-yada way badan yihiin, fiidiyooyana horaan oga duubay, laakiin maanta waxaan ku siinayaa 3 website ayaan ku dulgeynayaa oo mid kastaba markaad iska register garaysid ee inta aan kuu soo sheegna aad wadatid aad hore shaqo ka helaysid. website ugu horey waxaa la yiraahdaa People's Per Hours. People's Per Hours waxaa la yiraahdaa website isku xiro dadka freelancer ah iyo kambaniyasha in loo shaqeey rabo. marka aad website-kan soo gashid ee aad diyaarsan tahay profile-kaada aad gashatid, marka ugu horeysa halkaas aad imaanaysaa waad iska register garaynaysaa. markaad iska register garayso profile-kaada aad buuxinaysaa, haddii xirfad aad leedahay xirfadaad ku qoraysaa, haddii aad wax barato waxbaad baratid ku qoraysaa, skills haddaad leedahay ama xirfad markaad gelisid oo aad buuxisid page-ka sidan ayuu kuu noqonayaa. markuu page-ka sidan kuu noqdo halkaas ayaad tegaysaa, Paris project ayaad click siinaysaa. ana hadda waxaan isticmaalayaa computer, adigu waxaad isticmaali kartaa mobile ama laptop. markaad halkan timaado waxa kuu soo baxayo dhammaan shaqooyinka la soo geliyo iyo shaqo kasta lacagta lagu qabanayo. qof shaqaysta un baa lala yahay shaqooyin way ka buuxaan. markaad halkan timaado halkan waxaad ku qoraysaa tusaale kale adigu maxaad ku fiican tahay. okay, anigoo kale waxaan ahay voice over waxaan diyaariyaa script ama qoraalada ayaan cod u bedelaa. soo qofka raba marka in YouTube cod u saarto, muuqaalo u saar sida muuqaalkan oo kale ayaan ugu shaqeeyaa oo aan leeyahay freelancer oo ah tusaale kale. waxaan leeyahay aniga voice over aan ku shaqeeyaa. kadib waxaa leedahay ii raad shaqooyinka voice over ka aan ku sameyn karo. saad arkaysaan waxaa la ii soo tuuray voice over enable bots. laakiin mar walba inaan luqadda aan raba aan ku hadlaan ka fiiriyo. kan oo kale hadda Norwegian voice recording waa qaadana maxaa yeelay Norwegian waa luqadayda. haddii aan helo English waa qaadana maxaa yeelay English luqadaha aan garanayo ka mid yahay. haddii aan helo badanaa labada luqad 3 luqadood aan ku shaqeeyaa. haddii aan helo Soomaali qof u baahan oo in loo saaro waxa uu rabo cod Soomaali loo saaro waa qaadana. haddaan rabo English waa qaadana, haddaan rabo Norwegian waa qaadana. 3daas luqadood badanaa hadda ku shaqeeyaa haddii aan fursad u helo markay noqoto qaybtan voice over-ka. freelancer ana shaqooyin badan aan ku shaqeeyaa, laakiin qofka waxay ku xiran tahay xirfadu bartay ku xiran tahay. haddii xirfado badan aad baratid ama xirfadaad baratid dhan ayaa lagu shaqeeyaa. tusaale kale waxaa jirta xirfad kale aniga aan ku shaqeey waxaa la yiraahdaa social media manager. waa shaqooyinka xirfadaha aniga aan bartay oo aan ku shaqeeyo. tusaale kale wax ii soo baxaysa dhammaan shaqooyinka social media manager aan ku shaqeyn karo iyo lacagta aan ku shaqeynayo. qaar waa per hours saacad waay, qaarna waa fixed price-kaas ayaad kula heshiinaysaa, kadibna shaqada u qabanaysaa, price-ka lacagta ka qaadanaysaa. maxaan dhahnay website-kan waxaa la yiraahdaa People's Per Hours. waa website wadanka joogtad ka soo geli kartaa, ma hal meel kuma xirno. shaqadaada iyo adiga dadaalkaada ku xirantaa iyo sida u soo diyaaris. website-ka labaad waxaa la yiraahdaa Upwork. waxaan hore uga diyaariyay cashiro badan anigoo markaa ka hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta jooga in ay Upwork ka shaqeysan karaan. Upwork markaa soo gashid marka ugu horeyso waxaad iska register garaynaysaa halkaa, profile-kaada gashanaysaa, xirfadaha haddii aad leedahay xirfadaha sameynaysaa aad gashanaysaa. haddii aad cilmi aad soo baratay ama aad leedahay waxbarasho ama aad haysato diploma ama shahaado waxaad gashanaysaa, waxaad sheegaysaa waqtiyadii iyo shaqooyinkaas aad soo qabatay iyo waxa baratay iyo luqadaha aad taqaan. markaad iska soo diyaarisid halkaan ku keenaya. halkaan markaad imaatid waxaa lagu leeyahay shaqada raadso. markaad shaqo raadso markaad imaatid halkaas aad ku qoraysaa shaqada aad doonaysid ama waxa adiga aad qabanaysid. aan iraahdo waxaan ku shaqeeyaa okay, markaan soo qoray social media manager, shaqooyinka social media manager-ka ii soo baxay. okay, shaqooyinka halkaan markaa imaatid hadba shaqada rabtid adiga aad qor. okay, voice over baan iraahdo ana voice over aan ku shaqeeyaa badanaa. voice over markaa soo qabto saad arkaysaan waxaa ii soo baxday voice over needed English Malaysian. haddii English Malaysian aad taqaanid voice over waa qaadanaysaa. markastana waxaad fiirinaysaa shaqadaas iyo waqtiga la soo geliyay. haddii shaqada waqti hore la soo geliyay ee dad badan ay qaateen waxaa laga yaabaa inaad u baahneen inaad adiga codsatid. soo waxaad fiirinaysaa mar walba shaqooyinka waqtiga la soo geliyay. mararka qaar waxaa la soo geliyaa voice over Soomaali ah ayaa la soo geliyaa, qof Soomaaliya loo baahan yahay ama shirkada u baahan yihiin waad fiirin kartaa voice over. laakiin muhiimaddu waxay tahay adiga voice over ma tihid,
muhiimaddu xitaa adiga xirfadee baa taqaanaa waxaad eegaysaa lacag kastoo shaqo kastoo lasoo geliyo lacagta ama waa fixed waxaa la yidhahdaa lacag budget ah oo hal mar ah ama waa lacag noqonaysa maxay time waqtiga lagu xisaabinayo hadda tan oo kale waa fixed waa $200 $200 waaye qaarna baa hours waaye qaarka baa hours ka fiican hawali markaad ku shaqaynaysaa markasta fiican fixedka waxaa laga yaabaa inay yartaa lacagaha badanaa fixedka ah shaqo kasto ee aad doonaysid halkaana ka codsanaysaa find job so dhan waa shaqo ma weynaysid laakiin kaliya waxaa lagaa rabaa marka aad codsi samaynaysid tusaalo kale hadda shaqadan oo kale waxaan leeyahay waa qaadanaya marka halkan imaad shaqadan waxaa leedahay submit proposal ayaa leedahay shaqadan oo kale aan dhaha waa qaadana submit proposal ayaa leedahay kadib codsiga halkaan aad ku qoraysaa haddii ay kaaga baahdaan attach ama ay kaaga baahdaan fail attach ama wax caddeynayo qoraalka halkaana raacinaysaa intaad computerkaad ku diyaarsatid kadibna waa u diraysaa marka ay fiiriyaan codsigaada inuu matchin garaynayo markaa kadib email ay kuusoo dirayaan email kadib waa wada xiriiraysaan waxay kuleeyihiin zoom soo gal ama escape soo gal markastaba sababtan u lahay english inaad taqaano waa muhiim life ay ku interview garaynayaan kambaniyaasha u shaqaynaysa runtii kambaniyaasha loo shaqaynaya lacag badanaa loogu shaqeeyaa waxaa laga yaabaa saacadii inaad ku shaqaysa $20 ilaa $15 inta u dhexaysa inaad ku shaqaysid ayaa laga yaabaa marka inaad ka walowshid ma aha shaqo waad helaysaa dadaalkaada unbaa lagaa rabaa bis inaad dadaashid unbaa lagaa rabaa technical skills freelancer to edit hadda kanoo kale waa editing qof in wax edit garaa loo baahan yahay saad arkaysaan freelancer haddaa tahay shaqo ma weynaysid waxaan o dhan kusoo dhacay sidaan ay u egtahay hawaals ka marka waa upwork waa professional upwork inkastoo isaga lacagta kaa qaadanaya ay badan tahay tusaale haddaa $100 samaysa $20 isagaa kaa qaadanaya waa websitekii isagaa isku keen xiraya waxaan kula qabanaya hawsha laakiin kuwan kale saas ma aha websiteka saddexaad waxaa la yidhaahdaa aan rabo maanta inaan idinla wadaaga freelancer asagana wuxuu kamid yahay websiteyada lacagaha badan bixiyo marka qofka uu freelance ku shaqeynayo asaga markaad soo gashid iska register garaysid halkaa kore iska register garaynaysaa wuu ka fudud yahay wax badan kaagama baahno kadib halkaanaad imaanaysaa search job anida freelancer weli halkaas weli waxay ku qoran voice over laakiin aad waxaad ku qoran kartaa okay voice over looking for someone handling customer service English and purchasing in Mandarin marba waxaad ka fiirinaysaa lacagta midaad dalbanaysa iyo in horta dad badan ay dalbadeen haddii aad tahay sidoo kale copywriter haddaad tahay lacaga badanaa lagu shaqeeya copyright qofka markuu yahay soo hamogaanina inaa xirfadda copyright haddaa aad baratay hataa aad ku shaqaysan kartid lacag badan aad sameyn kartid soo freelancer isagana sidaasaan loogu shaqeeya wuu fudud yahay marka shaqadan oo kale hadda haddii aan dalbanayo kiligaan siinayaa kadib waxaad buuxinaysaa saacadahaadii proposalkaadii waxaad buuxinaysaa kadib senda ayaa leedahay waa symbol maalintii adiga gurigaada jooga waxaa qaban kartaa 5 ilaa 6 shaqo oo kala duwan oo mid kasta gooni aad u order gareysan kartid ama company kasta gooni aad u xiriir kartid ayaad qaadanaysaa waa freelancer lagu sheego waa sida qofka freelancer ah ee raba inuu company la shaqeeyo ee raba qaab freelance inuu ku shaqeeyo waqtigu rabo u shaqeeyo hadda doonto habeenka shaqeynay shirkadan Mareykan ah waqtigooda u furmaaya hadda doonto maalinta shaqeynaysa shirkadaha Yurub maalinta waqtigooda furmaaya shirkadaha Afrika so wherever aad joogto ka shaqeysan kartaa waa freelancer waxaana la yiraahdaa remote ay ku shaqeysanaysaa soo shaqooyinkan waa muhiim marka ugu horeysa inaad xirfadaha aan kore ku soo sheegnay inaad taqaanid aan mar kale ku laabto xirfadaha aad u baahan tahay shaqooyinkan haddii aad dalbanaysid kow English aad u baahan tahay labo human software skillka inaad ku fiican tahay ee ah inaad tahay qof mindset ahaan dhisan qof caqli badan qof intelligence ah qof communication wanaagsan leh qof dhageysta fiican ah qof teamwork leh qof ability resolve problemada leh solving kara leh time management inaad waxyaalo badan lagaaga baahan yahay casharada hore aan kusoo sharaxay cashirka human software aan kaga hadlay 3 qabood aan ka dhigay si fiican u soo daawado haddii aad doonaysid inaad noqotid freelancer waxa lagaaga baahan sidoo kale tools qalabka ayaa lagaaga baahan yahay time waqti ayaa lagaaga baahan yahay team inaad la kula shaqeeyo aad heshaa lagaaga baahan yahay meel aad fariisid ku shaqeysto xafiis lagaaga baahan yahay inaad leedahay information badan inaad hesho macluumaad inaad hesho sida maanta inaad website ka hesho kale website maanta aan kula wadaag inaad heshid waxa lagaaga baahan yahay inaad network haysatid video editor inaad taqaanid voice over inaad noqoto ama voice editor inaad taqaanid documentation inaad haysatid ama aad leedahay passportkaada ama sharcigaada inaad haysatid intaad haysatid qalabkan aad haysatid shaqadan waad bilaabi kartaa malaayiin lacagna waa sameyn kartaa adiga iyo waxay kugu xiran tahay dadaalkaada iyo waqtiga aad geliso ogow marka aad freelancer bilaabaysid sanad bilaha ugu horeeya way adag tahay inaad dhaqaale ku soo galo dadka waa inaad adiga isbartid isbiic gelisid suuq gelisid
la xiriirtid dadka walibana aad ugu shaqaysid si iskaa wax u qabso ah si shirkadaha ay kuu bartaan background fiican aad u yeelatid hadhowna ay kugu noqotay xirfad dadka shirkadaha kala waaweyn aad lacag kaga qaadan kartid sidoo kale isku day inaad macluumaad badan raadisid mar walba aad ka faa'iidaysatid I hope waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iidaysateen haddii ugu yaraan muuqaalkan aad isleedahay waxaad ka baratay wax tar leh ama adiga ku anfacaya fadlan sii share garay si u gaaro dadka kale oo qosay aad maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu